haddaan idin dhaho Nimco Happy wejigeeda ama muuqa fiiskeeda waxa uu jiri jiray 2 qarni ka hor. arrin sir aad u culus oo la yaabiyo ama kaag leh, misna arrinkaa bilowgii qiyaas ahaan wuxuu soo bilowday taariikhdii markay ahayd 1785. balse waxaa la yaab ah sida ay aaminsan yihiin kooxda loo yaqaano Illuminati ee shayaadiinta ah ee uu hogaamiyaha u yahay ibliiskii weynaa ayaa aaminsan in ay hadda ay taariikhdu tahay 2021 ay heleen isku xirka hoggaan ka soo wareegatay 200 sano ka hor xilliga haatan annaga aan joogno. haddaba waa maxay isku xirka ay heleen amaba ay aaminsan yihiin? 2 qarni ka hor waxaa jiray boqortooyo aad u weyn oo awood leh lana oran jiray Kingdom of Persia, boqortooyadii Persia. boqorkii halkaa ka talin jiray oo ahaa mid go'aan kulul oo hadalku ku dhawaaqo horay laga adeeco oo laga oofin jiray, balse go'aamada uu gaarayo iyo hadallada uu ku dhawaaqayo ma ay ahayn kuwa isaga ka sumacdo. maxaa yeelay isaga naftii ayaa ahaa mid hoos laga amro oo ibliis ka amar qaata, sababtoo ah shaydaanka uu ku amar qaadanayo wuxuu dul degnaa jirka iyo maskaxda gabadha uu dhalay boqorka, sidaas ayuuna ku adeeci jiray amarka ibliis oo u qaadan jiray si ay gabadhiisa iyo isaga naftiisaba ay waxyeelo uga badbaadaan. sida sheekada ka xusan, gabadha boqorka ayaa la oran jiray Princess Qasharmeme, ina boqor Qasharmeme, waxayna ahayd gabar aad u qurux badan. run ahaantii quruxda dumarka xilliga waxaa lagu qiimeyn jiray dumarka dhabanada iyo shaaribka xaadda ku leh, oo weliba kuwa aadka ay ugu muuqdaan xaadda shaaribka ayaa loo arki jiray inay yihiin kuwa ugu quruxda badan dumarka xilligaa jiray. sidoo kale waxaa jiray dhacdo la yaab ku noqotay bulshadii xilligaa joogtay oo ahayd 13 wiil oo aad u dayar inay isdileen oo ay nafta isdhaafiyeen, mid weliba isaga uu qudha iska jaray oo uu isdilay. misna geerida ku timid wiilasha waxaa lagu saleeyey gabadha ina boqor Qasharmeme darteed inay isu dileen. inkastoo arrintaa dhimashada ah lagu saleeyey in ay u dhacday gabadha darteed, wax xaqiiqo ah looma hayo, inkastoo ay dadku isaga qancin hadalka in ay isu dileen gabadha darteed, maadaama lagu ogaa wiilasha in ay jeclaayeen gabadha, oo weliba mid ka mid ah laga hayo tix yar amaba geeraar oo ahaa sidan: هدف خودمون استيقظ بدين كثيرة بصدار كهمرا بصدار. oo macnaheedu yahay waa ujeedka naftayda, ogsoonow inaan ku jeclahay, kaasii jeclahay naftayda. haddaba sababta keentay in aanu qisadan u soo qaadanno maxay tahay? maxayse tahay isku xirka qisada ay aaminsan yihiin kooxda Illuminati? inta aan ku falanqayn qisada, 3 su'aal weydii naftaada. 1. hees ka soo wareegatay 3 ilaa 4 sano maxaa hadda kor u qaaday? 2. mise fanaanada codkeeda ayaa lala lacay oo laga helay? 3. meerayada ayaa dadka soo jiitay? maxaase iska galay hees Soomaaliyeed iyo boqortooyada Persia? waxaan ula jeedaa heesta Nimco Happy, I love more than my life. ka waran haddaan idin dhaho Nimco Happy wejigeeda ama muuqa fiiskeeda waxa uu jiri jiray 2 qarni ka hor. haddaba waa sababtan waxa kalifay heesta Nimco Happy I love more than my life in ay kor u kacdo oo ay xiiso gaar u yeelato isku ekaashaha wejiga Nimco Happy iyo boqoradii Qasharmeme. haddaba waa maxay isku xirka qisada? maxayse Illuminati ay ka damacsan yihiin gabadha loo yaqaano Nimco Happy? la soco qaybta